waxa aad iyo aad xagga dagaalku ugu wareegay maanta ama saacadii abaaradii u dambeeyay dhanka iyo madaxtooyada dhankeeda baa xabadda xooggeedu ka socda walow ay lagu soo waramayo in madaxtooyada ay ka la wareegeen ciidamada BSF hadda waxa gaariga xabadka ku taala dawladdu ay leedahay iyadoo oo uu yaalo wadada Suweyta geedka qabriga agtiisa taas oo ka dhigan in gaariga kan lagu ilaalinayo gaari kale oo isna sidoo kale wuxuu ka dhacayaa meel u dhow aaga uu ku jiro hadda qorigaas ayaad u moodaa in ciidamadu ay aad u waarsan u ilaashanayaan si bal aan mar kale mid kale looga qabsan iyadoo hadda mid laga qabsaday oo ay kala wareegtay ciidamada BSF taas oo iyada ka dhigan in BSF to ay ilaa iyo hadda gacan sareyso ay dhanka ku gacan sareyso taas waxaad u malaysaa in dawladdu aysan mar dambe isku dayayso inaysan sii dayn ama se uusan gacantooda ka bixin qori kaleeto qoriga kan ba aad waxa looga ilaalinayaa afartiisa gees taayirkana waa laga bedelayaa isagoo taayirka xabadi kaga dhacday taas waxaad u moodaa in taayirka xabadi kaga taal gaariga kan oo laga bedelayo ama se ay ka bedelayaan ciidanka iyaguna dhufayso ka dhigtay aaga u dhow waxa hadda la istaariyaa gaarigii waana kacay waxaad u malaysaa inay istaarkiis hadda la bilaabay hadduu kacay dhaqaaqiis hadduu bilaabaya balse de lama oga jahan loo jahayn doono ma waxa loo jahayn doonaa dhanka xiisada dagaalku ay ka taagan tahay oo ah dhanka madaxtooyada oo ay xiisada dagaalku ay aad ugu xoog badan tahay ama se dagaalku xooggiisa badan uu u wareegay dhankaas iyo madaxtooyada madaxtooyada iyo ciidamada dawladda BSF iyo ciidamada dawladdu ay isku hor fadhiyaan foodana ay isku dareen taas oo sababtay in ciidamada dawladdu ay gacantooda ay ka baxdo madaxtooyada oo xoog badankiis uu jiray madaxtooyada taas oo sababtay in madaxtooyadii ay gacantii dawladda ay ka baxayso marba marka ka sii dambaysa insan moodo ciidankuna inuu ku gacan sareeyad u moodaa hadeer waa geedka qabriga Suweyto wadadii dheereed waxa xiray gaarigii weynaa ama baasuuku qoriga weyn oo suuga uu ka dhacay kaas oo badankiis markii hore ka dhacay aaga xaafadda Suweyto iyo aaga Ridwaan Laanta taas oo u moodo in isagu hadeertan la kiciyay oo badankiis hadeertan inuu la gelinayo dhankaas iyo dhanka dagaalka walow ila xogogaal aan wareysay ku soo waramayaan ilaa ay hadda waxa dhintay oo lagu soo waramay oo la leeyahay waa uu dhintay balse aanan wili cadeyn taliyihii madaxtooyada Puntland kaas oo isna sidoo kale kaga jira halkaas daafac aad u adag taas oo u malays in madaxtooyadu ay tahay meeshii laga maamulayay meesha dagaalka laga soo abaabulay oo ahayd xafiiskii namse xaruntii ugu xoog wadbeedneed ciidanka Puntland oo ku dagaalamayay saacadii u dambeeyay magaalada Boosaaso waxaad moodaa in saacadaha u dambeeyay ay magaalada isbedelka maaragtay dagaal uu sii xoogaysanayo ayna banaynayaan ciidamadu midba ka dambeeyay furinta hore dagaalka فضلا أصحابتي شير قرية بيت كنا جالس هذا أيوة ما marka waxaad u moodaa in ciidamada dawladdu ay ilaashanayaan qorigooda weyn oo suuga ah oo kii hore oo gacantooda hadda uu ka baxay fadlan page-ka share garay gaarsii asxaabtaada naguna soo bir walow dhimashada iyo dhaawaca ay yihiin kuwa tirada marba marka dambe tiradooda ay si siyaadayso taasina ay tahay mid ka dhigan in ciidamada dawladda iyo kuwa BSF labadoo dhanba uu khasaaruhu yahay mid aad u xoogaysanaya taasoo labada dhan xoogiisa loo badinayo in ciidanka dawladdu kale ay aad u badan yihiin balse lama hubo lamana soo shaacin lamana cadeyn balse waxaan ilaahay hadda aan ogahay hal askari oo kamid ah ciidamada dawladda inuu ku dhintay oo hospitaalka dhimeedkiisana la geeyay
waxaa sidoo kaleeto lagu soo warramay in ciidamo kale oo dhaawaca iyagana la dhaafiyey la mariyey oo la geeyey dhanka hospitaalka sidoo kale waxaa meesha ku dhintay amase ay khasaaruhu saameeyey shacabka ku nool magaalada Boosaaso iyaga oo shacabku ay aad iyo aad uga walwalsanaayeen awalba balse iyagoo aan loo ogolaan inay ka soo guuraan xaafadii ay ka deganayeen magaalada Boosaaso ee Ridwaan baa waxa ku bilowday dagaalkii ayaa ku qarxay taasina waxa sababtay in aysan cidnaba ka guurin amase ka qaxin dagaalkuna uu ahaado mid sii xoogaysan marba marka dambaysa موها يوسف قلبي صاحب أدبد ما صنتها صاحب إن شاء الله وتحضر يا أنت أو كلامك يا أمس أنت دذلك يا صاحب أدبد ما صنتها وحاسيدو كليتو aadi la soo xiriirayay bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan idin la socodsiinayaa xogta dhabta ay ka taagan maanta magaalada Boosaaso iyadoo oo ay dagaalku wili uu sii socdo wadeer uu ku sii qulqulaya abaar 4 saac xiisada dagaalka oo bilaabatay 4 saac oo barqanimo baa ilaa iyo hadda xiisada dagaalka ay socotaa oo tahay mid aan marnaba kala joogsi lahayn ay soconayo dagaalku wili waxaa hadda la kiciyey gaarigii weynaa oo la aaga geedka qabriga agtiisa kaas oo ahaa mid ay ciidanka dawladdu ay ilaashanayeen kan gaariga kan noociisa kale ta ah oo gacanta ciidamada ka baxay ayaa ilaa hadda gacanta dawladda ku soo noqon balse waxay xooggiisa saarayaan in maaragtay qorigaasi uu ahaado mid gacantooda ku jira uusan ka bixin mudda dhawaaqa xasaasta xoogeeda in uu jiro dhanka aaga amse xarunta BSF iyo gudaheeda dhankaas oo malayso in la isku dagaalayo waxaan hadda joogaa garoonka u dhow dhanka xerada BSF iyo masaajidkii xalay la isku horfadhiyay taas ayaa hadda ka dhigaysa in ay noqoto mid rasaastu ama hubku noociisa kala duwan oo noqdo mid ka sii xoogaysan marba marka ka dambaysa fadlan asxaabta nagu soo biir nala wadaag ayaan nagu soo biir page-kayga kana mid noqon وصوص ما والله هو وصوص والله ما جوعان iyadoo oo ay shacabku ay aad iyo aad ugu walwalsanayeen balse waxaad moodaa in qaxi ka koray in wadada tan ay tahay mid go'an oo laga sideedaba bataatan laba gooyay oo laga dhigay mid ka baxsan dawladda gacanta dawladda taas baa u moodaa inay ku jirto waxaa sidoo kale iyana jirta in ay duqa degmada Boosaaso uu maanta hadlay uuna ku eedeeyay eedaas in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka qayb tahay ciidamada ka dagaalamaya magaalada Boosaaso taas oo ka dhigaysa in uu yahay mid dagaalka maaragtay ka dhigaysa in ay ku jiraan dagaalada ciidamada gorgor ku dhawaaqay isagu uu yiraahday waxa dagaalka ka qayb ah ciidamada gorgor taas oo ay ku sheegay duqa degmada warsaxaafadeed uu soo saaray taas baa sababtay balse dagaalku wali waa sidiisii wax isbedelan laguma hayo wax waan iyo dhexdhexaadnimo mid toonnama aysan soo bixin taas ayaa sababaysa inuu dagaalku sii xoogaysto شويتا ما أركض دقيقة يا درمبا صدر ما أركض صاحب gaarigaas u jeedaan waa taayiraha laga bixiyay waa gaarigii ciidamada dawladda laga qabsan lahaa balse difaac adag ay galeen awgiis ay ka dhaceen ka riteen balse taayirada ka banjaray awgiis bay hadda dib taayiradiisa u soo kiciyeen taayirna loo galiyay si uu u dhaqaaqo marka waxa kale oo laga baqayaa in uu yahay dagaalku mid ka sii xoogaysanaya marba marka ka dambaysa waxaan ku jirnaa sidayadaba gambasho si aan idin la wadaagno xogta si aan idinku keeno marka idinkuna bal noo sheer gareeya la wadaaga asxaabtiina page-kana ku soo biira idinka oo dadkiina asxaabtiina la wadaagaya
waxaa sidoo kaleeto aad iyo aad xoog u saaran yahay dhanka madaxtooyada iyadoo madaxtooyadii ay ka baxday gacantii dowladda balse la rajaynayo inay dowladdu barashar awood badan iyo soo aruursi badan ay isku daydo inay samayso ka saarid ama sariixid inay dagaalka kala ka saarto balse ilaa iyo hadda ma cadda 24 November digreetadii madaxweyne ay soo baxday mira dhalkeedii maanta wuxuu noqday mid labada fooda ay istaraan labada ciidan iyadoo aan wax waan ah aanan ka muuqan balse madaxweynuhu uu ka fursan karay in xiisada dagaal ee magaalada ka jirta ay ka dhacdo balse ma uusan u fikir ama uusan ilaalin bulshada ku nool magaalada Boosaaso asxaabteeda bal la wadaaga asxaabtiina la wadaaga gaarsiiya fadlan wixii ka soo korna intaas in ka badan waa idin la socodsiinaya waxa gabi ahaanba korontada laga jiray magaalada goobe koronto xarumeeda kala duwan wax koronto oo ka shaqeynaysa magaalada haba yarata in aysan jirin fadlan la wadaaga asxaabtaada fadlan share garay si uu gaaro asxaabtaada بالجيت في حاجة عادي بالله بالله انت تبي فرنت وردات بلو بلو بلا من اخطا ما وضع من قالوا لكن بس لو نور كله مدة إذا كدولة دينية هو أن تحضر بدن سنين ومن كم إذا أسكرت إذا ماذا أسكرت كم إذا دولة عبد الله هذا دمه هذا بقي اللي تكتفي بقي انا حق سجن سنه هذه كده يا ها هذا ملو أركي واحد مدة إن حيسد كسر أسبوعات مقالة بوصاص أي تاي مت كسر درس مرة بيا waxaan hadda joogaa geedka qabriga ee Soweto waxa gadaasheeda yaala mid ka mid ah gawaaridii suuq ay saarnaayeen dhamaantood kaas oo dhaawac soo gaar ama banjarid soo gaartay awgiis oo ilaa ay hadda halka u yahay balse waxa difaac adag kaga jira ciidamada dawladda iyagoo ilaashanaya gaariga waxa ilaa ay hadda lagu soo waramay in ay gacanta ka baxday madaxtooyada magaalada madaxtooyada Puntland gaar ahaan gobolka Bari iyadoo ilaa iyo hadda lagu soo waramay in taliyihii uu dhintay ciidanka booliska ciidanka madaxtooyada balse ilaa iyo hadda wax cadeyn rasmi ah ma ay jirto oo cadeynaysa in taliyihii madaxtooyada Puntland uu lagu soo waramay inuu dhintay balse wararka la leeyahay uu dhintay waxaa sidoo kale lagu soo waramaya in xiisadu ay ka sii badnaatay sida tan gurmadka ciidanku uu yahay midaan marnaba kala joogsanay ciidamada BSF iyagana sidoo kale waa difaacoodu aad u xiranayaan si ay u xirtaan si aanan loogu soo galin xirada gudaha waxaan hadda ku suganahay waa mid kamid ah meelaha dagaalka uu ka socdo xoogiisa badankiisa waxaan idin kala socodsiinayaa wax walba ka soo siyaada waxaad moodaa in ka duwan tahay sidii horeeto dagaalka waxaad moodaa inuu sidii hore ka duwan tahay waxaad moodaa in ka duwan yahay sidii horeeto waanta ka soo baxday duqa degmada Boosaaso waxaad moodaa in duqa degmada Boosaaso uu maanta ku waramay uu yiraahday waxaana la dagaalamaya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya isagoo ku eedeeyay in ay dawladda Soomaaliya ku jirto dagaal
balse wax caddayn ah oo ilaa hadda lagu dhihi karo ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku jirta ma ay jirto balse wuxuu ku dhawaaqay inuu yiraahday waxa ka mid ah ciidamada gorgor inay ka qayb qaateen dagaalka qaybta ay ka jiraan balse war sax ah oo ilaa hadda la hayo oo ah in ciidamada gorgor ay ku jiraan ma jirto waxaa sidoo kale xoogaysanaya aad iyo aad walow gaariga kan uusan ka dhaqaaqin bartii uu ku banjaray laakiin se la kiciyay balse weli uu yahay mid aan dhaqaaqayn walow lagu soo waramayo xogaha aan helayno in la dilay gaandharigii gaariga saarnaa amase waday amase ka ahaa gaandhariga taasina ilaa iyo hadda ma cadda balse waxaa sidoo kale xoogaalka ku nahay aan helayno ay ka mid yihiin in uu isna sidoo kale uu dhintay yarkii amase gaandharigii gaariga kan weyn oo ah nooca isuuga uu ka dhaco waxaa aad iyo aad ugu dhintay xaafadda tan amase aagga kan ilaa iyo hadda aan ogahay qof shacab oo ka mid ah balse ilaa iyo hadda xaqiiqada dhabta ah amase khasaaraha dhabta ah oo jira lama oga taas ayaa wax walba sababaysa marka wax walba oo ka soo siyaada waa idinla socodsiinaya fadlan page-ka ku soo biir nagala qayb qaado nagu soo biir aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kaga mahad celinaya idinkuna sidoo kaleeto nala wadaaga wixii aad ku haysaan waad ila soo xiriiri kartaan weliba si gaara waxaad moodaa in ciidamada gurmadka ugu imaanaya aaga ay yihiin kuwa sii badan iyo marba marka dambeysa فهذا وكا قاضي زيتاي الحمد لله والله براقو كوفي عناي war maaragta saaxib mobil gacanta kale mobilkii waa live bank ka jiraayo asxaabtii maaragtay xiisadii dagaal baa saaka aad u sii xoogaysatay oo dawladda waa ka waxay ka mid yihiin shacabka ku waxyeeloobay xiisadda halka ka taagan bay ka mid yihiin saaxib waa ka ما هي فهذا واحد بس أنا كسوة عي حاجة هي إن واحد مدة إن حيصد أي سي هريس مرة بمركز كذا بس أنا الجيران كانوا ماشي واحد جيران عليكم السلام الحمد لله ديار عادي كورة مكرا لا waxay ka dhacayaan madaxtooyada dhanka madaxtooyada dhankeeda ka dhacayaan waa ka okay يركع عسكري بقى يري ماشي كدقاقه كل دي لا غران ما دن لا aado balse ka dhaqaaqo yiri ilaa iyo hadda uu soo socda xagaas ayuu fariistay waxaan lagu amray inuu bal isku dayo inuu naga dhaqaajiyo aaga aan ka soo waramayno isaga oo gacanta noo haatiniya marba marka dambaysa
waxaa aad iyo aad isii xoogeysanaya xiisada ka taagan balse waxaad moodaa in halo buu waa tegey haddan tegey waxaad moodaa in magaalada maaragtay sidii hore ay ka duwan tahay dagaalku dhankiisa badankiisu isla aaday dhankaas iyo madaxtooyada dhankeeda ها هلا وعليكم السلام ها هي 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 aad baad u mahadsantahay mudane sida wanaagsana wax iigu sheegtay waa kaaga mahad celinaya okay aad baad u mahadsantahay aniguna sidoo kale reer Puntland baan ahay boosasaan ku joogaa aad baad u mahadsantahay okay hayo waaya hay aad baa hayo aad baa u mahadsantahay waxaan aad iyo aad idinka cudur daaranayaa saxaafadda waraysiga ila sameynaysa fadlan saxaafadaada ama se page-ka ama se TV-ga ka socoto inaad ila socodsiisaa waa muhiim si xogta loo ogaado waayo wax walba waa dhici karaan waayo saxafi baan ahay ma ahan kaliya inaan barnaamijkayga aan qof walba u gudbiyo sida wanaagsanaad isula xiriireysaan oo waxa jira ila socodsiinaysaan aad ayaan kaga mahad celinaya waxaad moodaa in hubka dhankii rasaasta dhankeeda ama xoogga dagaalku uu u wareegayo dhanka iyo madaxtooyada xoogga badan uu ka jiro dhanka madaxtooyada taasoo dhalisay in madaxtooyadu ay iyaduna sidoo kale ay ka baxdo gacanta dawladda waxaad moodaa in dadku ay badankood ay koolka ay aad u soo xiriirinayaan fadlan waa idinka cudur daaranayaa inaad samaysaan inaad samaysaan koolka inaydan wicida badan yaraysaan aad iyo aad waan uga caawanayaa sababta taleefanka dabkiisu aad buu iga dhacayaa dagaalku wuxuu u wareegay dhanka iyo madaxtooyada وعليكم السلام الحمد لله ونكسلناhay xogaa iska xiisad dagaal bes baa ka jirta hadda xiisada dagaal way sii qaboobaysaa way degaysaa hadda aamin insha Allah ilaahay nabadgeel insha Allah هلو هلو ها ها maxaad ahayd leefka haddaan ka baxo maxaad ahayd adigu maxaad ahayd waxaa rabtaba ahow saaxib waa mahadsantahay waxaad rabtaba ahow aniga waxba igama gelin lifeka akoonkayga bejka kaga jira haddaad daawan karto daawo okay aad baa u mahadsantahay samey waxaad samayn karto fadla waa ku jeeda nin dhalinyara inaad tahay haddaa awood u leedahay inaad wax samayn karto bal samey aan arko haye haye
haye haye mid baan kuu sheegaya saaxiib anigu cadowga aan u jabinayo Puntland garan maayo balse waxaan ahay dadka ku nool Boosaaso shacabkeedii inaan xaqiiqada sheegana saaxiib mar walba waan u taagnaa waligeena waan u taaganahay waxna kama dhigay balse anigu wax uma arka aan wax amniga Puntland wax u dhimay inaan sameeyo aad adaa mudan saaxiib hay adaa mudan saaxiib halo عليكم السلام جوجي سيده هore wuu ka degan yahay alxamdulillah may xabad ma joogsan balse sidii hore wuu ka duwan yahay may nimeer soo dhawaanaysa barteeda ma soo dhaafin xabadu dhanka madaxtooyada iyo aaga ma soo dhaafin saasa lagu soo warinaya laakiin balse de wali hubsima sax lama hayo oo cadeynaysa inay la wareegeen ya may airportka waa gacanta dawladdu ku jira wax ka baxay ma lahan ya xagaas u badan yahay dagaalka xoogiisu may waxa ma sameynay aniga afka hore waxaan joogay xaafadaha san degan hay adaa mudan halo waa ku maqlaa alxamdulillah ilaa maadii waxaan joogaa xaafadahaygii حافظها جوا ها ماي يا وين سوري ساعة نفاسو أنا بيسيا والله زعل لما برضه وعي وريري كواكاز الحمد لله صار دنك مدحتويدا حبدو خيغان xoogoodu دنك مدحتويدا xigtaa ما هذا النيو دنك قبورها way ka xirantaa wadadu ciidan baa jooga ما madaxtooyada way meesha la dhahay waa la qabsan laakiin ma ahan bahalkii waa qof isoo wacay waa garan waay wuxuu ahaa waa kulay xogaa uu ii dhaartay laakiin markii dambe caadi bay ila hadlay waa iska dareemi kartaa qof xanaaqsan oo isoo wacay waa صاحب هيا صاحب إن أدو مهزين صاحب هذا سيدا جارك إلى صو حريرية إن يجينا الدقيقة أما سيدا هيا صاحب إن بالإسئلالي إن بحول بويدا إن صاحب هذا أدو مهزنتين إن صاحب العدة أو آدي يقول بدن أوجد ثلاثة كقبشين سوي وأذك تهي إن أدو يجينا مع العلنية waxaad moodaa in ciidanku ay ka baxeen wadada tan uu taayirku u oolaa markii horeeto hadda way ka baxeen waxay u wareegeen dhanka kale inay u wareegeen baa loo baahay waayo in xabadu meel ay ka socoto meel ku socoto lama kala garan karo waayo wiiftada xoogeedu xaggaas ka dhacaya waxaan hadda u dhowahay dhanka iyo aagi xirada aan dhahay isoo qabo geedka qabuuraha agtiisi waxaan ka soo wareegay dhankii horeeto oo ay bahashu ka socotay waxaan u soo wareegay dhanka kale xabada dhawaqeeda ay waxay ka dhacaysaa xoogeedu dhanka iyo madaxtooyada iyo dhanka kale taas oo mar walba dhalin karto wax walba taas in wiiftadu maaragtay mar walba ay meel kasta ku soo dhici karto taas baa loo badinayaa walow dadku maaragtay badankood ay tunsan yihiin dibadaha iyo banaanka si ay u ilaaliyaan nafsadooda haddii bal loo soo dhawaado ay khatarta badan uga ilaaliyaan halo هيا
أيوة أدب ما صنتها مدن أدب ما صنتها إن واحد مدة إن تلفوننا إزدواج جوجين هو أدب بدن هلو وعليكم السلام هاي هاي ها أوكي سحب أدب ما صنتها ولا المع أدب ما صنتها هاي سحب dadka shacabka oo soo wacaya waxaad u malaysaa in aad soo wacayaan iyaga oo ay igula talinayeen dhaqdhaqaaqa badan balse intaas oo dhan waxaan u mariyaa waa idinka dartiin si aad u ogaataan xaqiiqada dhabta oo maanta ka taagan magaalada Boosaaso والله ويسقي هدر حافظي وانا ودوهاي هاي ايو ها واي هدان اذي حافظ هاي اي ادو ما صنت هاي حافظة اجوغا والله اي حافظة اقيمي بهدر هاي إن تلفون كدبكيسي وكويت ونجا مريا وحنا رجينا إن بال تلفون كسود إن دب جليو إن باور بنجي كانت إنه دبلاني جي هون ملانا ماي الحمد لله جاجر بيجي جرا وحنا سود إن هنقشته جا باور بنجي إن بالسيان أو هلا تلفون كدبكيسي وسنة قد إن واحد سنة ساعة جاجر كفبورك يسوقه جاجر كفبورك يسوقه إن خدك التلفون دبكي وإن حواء يغير هذه تلفونك لبدي تلفون أو واتساب دبكي ويقدعن بس إن سين ذيك يدين لو ذا أوجس وحول بوان صمينها تاجر كي باور بنجي أو واتساب كشنيا هدو الله أود الإمام إن أذي أدوى يدي ما سينيا إن وحن أمالينيا إن وحول لايف وسيمريا إن لبا كوني تدور بقول إن سودو هذا أدود ما سنتين كم من نقطة كل أصحاب تبيج كي كحرن كنا سودو هذا بيج كمحمد جامع وذي سودو وينيا مر لبادي مر صدحان إن يضع أفير إيكن جاجر أفير إيكن إن سود هذا إن أصحابتي إذا أتك وحرم بيتك محمد جامع هلو الحمد لله ها هاي أدو أم صنتها ولا الماء هاي هاي بو أدو ما صنتها بل هاي وكده ذالي يا مدن أدو ما صنتها هاي بو أدو ما صنتها كاجا ما دعنيني ولا الماء سيدا قروح بدنا يقول شكتي هاي ولا هاي بو إن آدي ويدي كجمع العلنية إن وح آدي لسه حريرية تلونا في السين يقار كمد عبد الشدة إن ولا المعن سكستاد إن يسيس تلو وكا قدوم وأنا ما تصنتي سيدا آدي لو ذا جسوا تلا أنا جن نفسي أتكو إلى الناس إن آد ما تصنتي إن مر لبادي مر سدحاد إن ولا المعن